xubno isugu jira wasiir ku-xigeenka iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka Hiiraan ayaa maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. ujeedka mas'uuliyiintan ay ku soo gaareen magaalada Beledweyne ayaa ku saleysnaa sida ay sheegeen oo kurgalida xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada ay matalaan xalinta cabasho dhawaan ka soo yeertay waxgaradka iyo bulshada ay ku matalaan dowlad goboleedka Hirshabelle sidii loo xalin lahaa. mas'uuliyiintan oo u badnaa wasiir ku-xigeenka iyo xildhibaano way wehliyaan siyaasiyiin oo wadajir warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in maalmaha soo aadan ay joogi doonaan magaalada kulamo kala duwan ay la yeelan doonaan bulshada deegaan ahaan ay ku matalaan maamulka Hirshabelle iyo guud ahaan bulshada gobolka isla markaana ay xalin doonaan intii karaankooda cabasho kasta ay qabaan bulshada gobolka. waxaana kamid ahaa mas'uuliyiinta warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur, xildhibaan Cabdiwaaxid Axmed Cumar oo loo yaqaan wadaad yare, iyo wasiir ku-xigeenka oo kamid yahay Cabdiladiif Maxamuud Xaaji Cabdi iyo waliba Maxamed Bashiir Qaasim oo loo yaqaan Daqare oo ayagu kamid ah wasiir ku-xigeenada dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaana hadaladoodii kamid ahaa safarkeenu wuxuu daba socday ama uu ku tacalluqay bulshadii annagu aan matalaynay oo isugu jirtay nabadoono, aqoon-yahan, culamaa u diin, bulshada rayidka ah taasoo cabasho muujiyey oo cabashadaasoo na soo gaartay. cabashadaas inaan ka jawaabno, inaan ayagu wada tashi la samayno, in bulshadaas aan dhageysano wixii tabasho ay qabaan. dabcan qofku inuu tawdo waa wax muhiim ah, wixii wax laga qaban karana laga qabto, wixii laga daaweyn karana laga daaweeyo. safarkeenu arrintaas uu ku saabsan yahay. maalmaha soo socdana waxaan joogi doonaa hadduu alla awoodo leedmo degmada Beledweyne bulshada qaybaheeda kala duwan ee anagu matalno aan xilkaas ku matalno ayaan la kulmi doonaa. wax alla wixii markaa cabasho ay qabaan aan ka dhageysan doonaa. Hirshabelle waa laba gobol oo midooday, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. Hirshabelle waa loo dhashaa maahna meel la galo laga baxa ma aha. systemka iyo nidaamka wax lagu maamulo oo shakhsiyaad ay maamulaan waa dhaliili kartaa, meeshaas uu ka qaldan waa dhigi kartaa, laakiin systemka oo dhan wada khaldan sax ma ahan. dabcan siiqada ay u dhigeen odayaasha iyo siiqada loo fahmay ayaa aad u kala fog. annagu systemkii qaabka u shaqeeyo ayaan ka baxnay waa maahane Hirshabelle ka baxnay ma aha. Hirshabelle waa meel loo dhasho, waa system jira, lagamana baxayo lamana soo galayo. mas'uuliyiin unba isbedeli doona mustaqbalka soo socda maahane ma aha. marka siiqada la khalday, siiqaduna hadda annaga sixi doono qaabka ay wax yihiin insha Allah. Hirshabelle baarlamaankeedu wuxuu ku dhisan yahay nidaam xisbi ma ka jiro, nidaam qabiil ay dadku tagaan. dastuurkan wuxuu leeyahay awoodda baarlamaanka, awoodda maamul waxaa iska leh shacabka. annaguna waxaan u nahay wakiilo. mar haddii dadkii aan wakiil ku ahayn cabasho ka timid inaan soo gaarnaan ku qasbanaanay dhammaan dadka degan degmada Beledweyne bulshada qaybaheeda kala duwan inaan la kulanno, gaar ahaan cabashadayna dadkii cabashada sameeyna aan la fariisano. ujeedka safarkeenu sidaas uu ahaa. ujeedka safarkeenuna wuxuu ahaa ka jawaabidda cabashadii ka timid dadka deegaan ahaan aan ku matalno deegaanka maamulka Hirshabelle. u nimaadno, kala warqaadno, wax alla waxa ay tabanayaan aragno, kadibna annaga maamulka aan ku matalayno iyaga deegaan ahaan maadaama cabashada ay noo soo marsiiyeen meediyaha, annagana waa u nimid inaan cabashadooda iyo tabashadooda dhageysano, kadibna aan ka jawaabno, wax alla waxaan ka qaban karnana aan ka qabanno. waxaan nahay xildhibaano iyo wasiiro reer Hirshabelle degmada dhammaan wixii problem oo ka jiro iyo waxa maxaan ku raada umada ay tabanayaan inaan fiirinaan u imaanay. qaasatan beesha anaga aan ku matalno ayaa cabasho ka soo yeertay. cabashadii aan u imaanay insha Allah billahi kariim wixii aan macquul ahayn ama sheeqada qaldantayna inaan toosina rabnaa. wixii macquul aan ula noqono dawladda Hirshabelle aan ula noqono. arrimaha ku aadan bariyahan warka la sheegayo ee qaldan. Hirshabelle waa meel loo dhasho maahna meel laga baxo ma waa la galaa maahna lagama baxo. dadka waxaan ka shaafineynaa dadweynaha meel walba joogaan dalka iyo dibadda inaysan jirin wax problem la yiraahdo oo maxaa ku yiraahdo waxyaabaha dadka qaldan ee wadaan inaysan sax ahayn. wax toosan oo nidaam dawladda Hirshabelle sharaf oo ay ku soconayso dadka cabashada sameeyna maslaxadooda la fiirinayo. intaas aan u imaanay. Khalid Maxamed Ismaaciil Kacase, Telefishinka Somali News, Beledweyne.